وحناهاي وهديقة دوسيدا دورت الورارو هسها وقاقا وحلقو ولوسا مقعب هيو أدنيو أفدتنا أنبقات كجيدا سيدورت الورارو هسها وقاقا وحلقو ولوسا مقعب هيو أدنيو أفدتنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان أرضنا يا صحابتي انتو كحر من channel برايميريسو ومعلومات صلاة محمود برايميريسو آلاب إنسو بعشرة دوسية السريبا وشيك مصري فيسكيسكا هادنا إنسو بنا chapter فصل كتمانية اللبات أما فور كساو تقانا بوجيسا منهج كصوماليا كاسو chapter كواد أنا مسترني هدو إلهي عشر كيسا أفراد endocrine system أيام معناها كدارينا وعنوسو السعودية عشر كي nervous system كاو صورنا ميني بويج طبعا هذا اسل سوق قارني وحن برينا مركا endocrine system أيام كدابا دارينا إن شاء الله عشر كو complete chapter كو complete أنا بلاي ليست أيام كوجوا chapter كان قيبة بدن وكوبي إلا 5 فيديو 6 فيديو قارية وايلا يريري marka waxaan kugu kulminaa playlistiga channelka dhexdiisa ka dhayo haduu ilaahay ma ka daalaco endocrine system waa naqaanaa systemska jirka aadanaha waxaan ka soo hadalnay wax loo yaqaano kuwana badan hadaa ku saacsi 11 system ay dhahan laakiin buug wuxuu qorayaa 9 system ama 10 system meelaha soo qoraya ko systemka uu koowad waxaan ku soo qaadanay wax loo yaqaano chapterka buugan la dhaho 11aadka ama aad taqaano form 3 oo taqaano chapterka koowaad ku soo qaadan waxa la yiraahdaa loo yaqaana skeletal system isla chapterka kood muscular system iyo decametrial system saddex system ku jira digestive system chapterka labaad waay circulatory system chapterka saddexaad waay circulatory system kaas waxa soo dhax gala respiratory system chapterka afraad waay halka loo yaqaano homeostatic ama excretion system oo yahay chapterka shanaad ee buugaas macna inta toddoba chapter buugaas toddoba system chapter buugaas lagu soo qaataa buugan loo yaqaano 11 12 laba system ku qaadanay saddex system baan dhahno laba system way awood badan laakiin saddex system aan dhahno waxaan ku qaadan doonaa nervous system oo ku soo dhameystiray iyo endocrine system iyo reproduction system systemska aadanaha isla shaqeeyo jirka aadanaha markuu wada shaqeeyo jirka noolaha maamulka systemska markuu wada helo oo function mid kastana ka soo baxo shaqadeeda ayaa waxa la dhihi karaa waxay qabteen shaqo isku mid markaas jirka organism noqda oo soo loo yaqaan waxaan naqaanaa hore ku soo cusub kuna soo baray waxa loo yaqaan noloshana ka soo bilaabato cell ama basic unit life kaasoo cell yiraahdo cellska markay isla shaqeeyaan isku wada tagaan cells wada shaqaan tissue ay noqdaan oo nudo ah halka cellku unug ka yahay tissue haday wada shaqeeyaan isku wada tagaan waxa loo yaqaan organ oo xibin ah liverka kamid ah haday organisku wada shaqeeyaan ayaa wax soo baxay system oo habdhis ah habdhiska aadana digestive system endocrine system hadana hormone nervous system reproductive system oo chapterka labaad baan kugu soo gudbiyay buugan so haddii systemkii wada shaqeeyaan waxa soo baxay noole organism ayaa soo baxay wada dhameystiran markuu isku xiran yihiin haddaan taa tusaale soo qaadano waxaan dhihi karnaa nolosha caadiga ah ee aadanaha bini'aadamka daily life ku sameynaya saas camal oo haddii halka qof oo cell yahay hooyo aaba isku tagaan tissue aan dhahno ilmihii dhalanayo waxaasna aan dhahno organiska deriskii systems aan dhahno kabacdina haddii community dhammaan iskaashadaan meesha community waxaa soo baxay organism macnaha waxtar leh oo iskaashada oo macnaha haddii laakiin firkli form marqay Soomaaliya kuma mahada qof kasta meel oo xintaab ku cishto waxa waaye problem weyn kasoo gudub sida ay la socotay casharadii hore haduu ilaahay idmo aan u maleynaa inaan wax badan ka fahantay comments-kiina oo inaan ka mahadcelinaa share-kiina oo inaan ka mahadcelinaa subscribe-ka intaba ardada aad baan ugu mahadcelinaa asxaabta macnaha goonada igu xiran kuwa aan badana waxa jiro ardo badana
direct contact la soo sameysa ayagana aadi ugu wacan yihiin ha ka yaxyaxin ana ka xishoon inaad contact caadi la soo sameyso aan ahay qof dhalinyaro ah mar kastana jecel horumarka dalkiisa iyo dadkiisa duu ilaahaymo meel kaste ama si kaste ku kaalmey kale awoodeedu ay ku xirantaan waan jeclayna ku kaalmey duu ilaahaymo kusoo dhawaada marka cashirkeeni noo socday waxaan maraynaa chapterka koowaad cashirkiisa afraad duu ilaahaymo waan arki doontaa fiidiyoyaasha kale waa wada diyaar duu ilaahaymo hal mar baan soo geli doonaa. This is another system of coordination. waxaan dhahnay systemka chapter 1 waxaa noo qoran ciwaankiisa koowaad coordination and communication of nervous system. Communication and communication isgaarsiin coordination iskaashka labadii marka waa another system kale oo coordination qaabilsan waan isbarbar dhigi doonaa labadooda iyo animalska waxaa oo sii dheer ama nervous systemka waxaan leenahay systemka wuxuu ka kooban yahay endocrine glands qanjiro ayuu ka kooban yahay dactylus oo macnaha aan ka lahayn which secrete hormones kuwa dactylus and laba loo qaybiyaa endocrine glandska dacty and dactylus hadaan dhahno which secrete hormones keed ma lahan hormoonay soo daayaan hormoonada waa qeexi doona asagana hadaa dacty maqashana waxbay way keediyaan interaction between these hormones form communication network in the body of animal hormoneskaas isla shaqeyntooda iyo isla falgalkooda communication shabakad isgaarsiineed ee noolaha muhiim u ah waa jirkiisa. Hormones maxaa la yiraahdaa organic components waa isku dhiso organic ah either protein or steroid in natural waxay noqon karaan protein or steroid chapterka waxaa ku laabataa labaad biochemistry fasalka 12ka ee chemistryga duulahaydmo labadan lagu sharaxay protein and steroid. Okay, they are producing minute quantities waxaa la soo daayaa wax yar ayuu cellka soo daayaa in a part of the body cellka in cellska wax yar soo daayo in part of the body soo daayaa and transported by blood stream qulqulka dhiigga macnaha la qaadsiyaatooda other parts si u tago the same organs ee noolaa isku mid ah where they produce the response halkaasoo falcelinta ama jawaab celinta laga soo sameeyo those parts of organism that respond only target organism halka meesha macnaha xibinta loo falgalka celinayso waxaa la target organism aanayna receptor ku magacaabeyna kale in animalska just like plants dhirta waa isla mid hormone leedahay play important role in regulating growth and development waxay ka ciyaaraan door muhiim ah oo koritaanka iyo kobaca control behavior of animalka controlan sidii inuu naxdintii kacsiga something like that during breeding taranka ama isku beerida inta lagu jiro proper function of cell ee cellka inuu si sax u shaqeeyo waxaas oo dhan ayay hormoonaadku ama macnaha endocrine glands ka qabtaan hormonesku waa muhiim. Okay, haduu ilaahayno production of hormones from dactylus glands either directed or indirectly influenced by the nervous system. Dactyluska kuwa keedka lahayn waxaa dhici karta laba optionba inay si directly ama si indirectly u saameeyaan labadaba way dhici hormoonadka soo deyntooda marka way ku kala duwan yihiin si toos ah in loogu soo xiriir ula lahaadaan ama si dadban nervous systemka ama habdhiska dareenwada. Endocrine glands are located various parts of the body as a show in figure cause waxaa leenahay endocrine glands way ku kala duwan yihiin noolayaasha macnaha sida sawirka hoos ku socoto haddaa cashirka meel qaas ka hesho ama si gooni aad ka hesho ha moogaanin channelka bara imiriso ayaad macnaha kor kugu xusan markasta videoga kore ayaad macnaha ka daalacan kartaa ama kala socon kartaa haduu ilaahay. endocrine glandska qeybaha kala duwan male and female on kala qaadno male ka kana waxa laga helaa madaxa laga helaa waa loo yaqaano pituitary gland master gland yaa la hawaan arki doonaa midka maamulo dhawaaye haduu ilaahay ma ka soo baxay thyroid gland yaa doonto ayaad ugu imaanaysa ka bacdina liverki iyo pancreatic enzyme iyo kuwa soo daayo kiliyaha halka adrenal gland yaa ugu tagi doonta haduu ilaahay way kala duwan yihiin prostate jiro oo gland ama kuwa macnaha taranka qaabilsan intana waa islaamid oo wixii ku kala duwan yihiin meeshan testis meeshan uu ka leeyahay kuwaani inuu ovary gland iyo waxaas ay ku leeyihiin macnaha aba waxay ku kala duwan yihiin progesterone iyo testosterone ay ku kala duwan yihiin glandska la yiraahdo. Okay, sawirkan marka hoos aqrinayaan usoo laabo doona waa hoos oo qoraya pituitary gland waa midka ugu sareeya qanjirada the master gland that control activities of other endocrine glands. Master glandiga maamulo dhammaan howlaha ay qabanayaan qanjirada oo dhan waaye si kastaba ha noqotay an action is coordinated by the hypothalamus. actionkaas ama falka dhacayo waxaa iskaashi sameeyo hypothalamus is a part of the brain gaar ahaan for brain ayay kamid tahay through nervous communication ayaynu martaa
hypothalamus influence activities pituitary glandiga ayay saameysaa by monitoring iyadoo maamulaysa the level of the hormone heerka hormoonka ama cadiga hormoonka and other chemicals waxyaabaha kale chemical blood pass through it ee dhiiga kusoo gudbaa. It also influences waxay saameysaa oo kale the segregation of anterior lobe of pituitary anterior lobe ama qaybta sare ee loo yaqaano pituitary glandiga secretion ku sameynana way controlshaa. Waxaan leenahay intaa ku laabanayna qaabka u controlshay si kastaba noqoto waxay jirto hormoneska excess control over the reaction through haddii hormoneska saaid ay noqdaan oo macnaha eraygan waa dheeraad macnaha waa la controlaa waxaan lagu controla mechanism ama hab lagu magacaabo negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism play important role door muhiim oo ka ciyaara controlling many biological process sidaan kusoo aragnay from trigger ayaan ku arki doonaa negative feedback mechanism from trigger chapter 3 in this can be illustrated using negative feedback control by thyroxine. Sawirka soo dhaafna ama pictureka soo dhaafna diagramka soo dhaafna waxaan loo sheegi doonaa haddii macnaha feedback thyroxine-ka waxaa lagu magacaabo qaabka lagu controlay waxa uu soo saari doonaa hadduu ilaahay. Okay, aan ku laabano sawirkan soo sharaxno ka bacdina oo soo laabano. This image ka oo saabno loogu sharaxa waxaana leeyahay from the illustration you notice that the thyroid gland is produced too much thyroxine. Haddii oo thyroid glandiga waa qanjirka soo daayo thyroxine tiro badan hadduu soo daayo what happens afan kaas waa hoos midkan kore aan soo aqriyo intaan ugudo. Negative feedback mechanism maxaa la yirahdaa kani waa negative feedback mechanism sawirka tobanaad waaye. Waxaan leenahay negative feedback mechanism wax kale maahan oo ka kooytamnaade trigger stimulus caris ayaa la sameeyaa jirka soo gala hypothalamus markuu soo galo part of brain for forebrain oo qaabilsan waxa loo yaqaano waxyaabo badan release factor ay soo diisaa ama waxyaabo macnaha waxaan pituitary glandiga ayaa taga TS oo aan dhahayno asagana waa hormoon hoos ugu qoran ayaa thyroid glandigi ka nashaadiya ama cariya substance thyroid glandiga markaas wuxuu soo daayaa thyroxine hormoon la dhahayo hormoonka thyroxine-ka metabolic rate ku qayb qaata wixii ka dhacaya jirka haddii thyroxine-taas waa meesha laga dalinayahay ay tiro badato excess thyroxine way soo laabataa markay soo laabato waxaa loo yaqaan negative feedback aan dhaca hypothalamus-ka xiriir toos la sameysaa iyadoo pituitary glandigana lagu reebayo. So haddii filartu ka go-anta stimulation waa carin oo si caadi ah haddii filartu ay jarjaran tahana waa inhibition oo joojin ah wixii in la xadado la joojiyo habka u dhacaya hoose. waxaan leenahay sharaxaad aad ku ogaato thyroid glandiga wuxuu soo daaya too much thyroxine hadduu soo daayo wax badan that signal level calaamada will be sent to the pituitary gland. Signal level ayaa waxaa loo diray pituitary gland waa kana signal level kana waxaa loo diray calaamadana pituitary gland loo diray. Pituitary gland calaamadaas marka loo diro what happen maxaa dhacaya marka loo diro the pituitary gland to secrete less thyroxine wuxuu soo daayanayaa ama amraysaa thyroidka inuu yareeyo stimulate hormonka ayadoo stimulate hormone lagu magacaabo thyrobrofin ama THS oo lagu magacaabo macnaha thyrotrophin lagu magacaabo asagoo macnaha soo daaya the amount of thyroxine therefore falls cadadka thyroxine la soo deynaya markaas hoos loo dhiga oo markay badato there are several hormones caadiga haddaan sii galno hormoono badan ayaa human body ga jirka aadanaha ku jiro shaqooyin kala duwan qabta. Most of these have been discussed under reproduction homeostasis and digestion. badankood waxaan kusoo doodnay ama kusoo qeynay reproductionkii homeostasiskii digestionka chapterada la kala laba chapterna wuxuu ku taalaa waxa loo yaqaano buugga saddexaadka ama form 3ga chapterka reproductionkana waxaan ku arki doonaaba chapterka kan xiga waaye adiga respective areas ee u kala horeeyaan. In this section waxaan leenahay adrenaline and thyroxine will be deal with sectionka waxaan ku baran doonaa labada hormoon oo kaliya. Thyroxine noo soo qaad waxaan leenahay thyroxine hormone waaye horta kow hadoo u dambeyso intaas produced by waxa soo daaya thyroid gland qanjirka soo daaya hormoonka la soo daayo found intee laga helaa neck region qaybta qoorta ayaa laga helaa oo markaa sawirka dib ugu laabano this compound of iodine wuxuuna ka kooban yahay ama isku dhis ka samaysan yahay iodine. Shaqadiisu maxay tahay thyroxine controls basal metabolic activity hoolaha ka dhaca jirka gudihiisa ee cellka ayuu control this done by increasing glucose oxidation taasna wuxuu ku sameeyaa inuu badiyo ama kordhiyo glucose ama energy-ga meesha ka helina gubitaankeeda. It also enhances waxay suurtagelinaysaa the effect of growth hormone inuu saameyn isagu u geysto oo loo yaqaano sonotropin
this ensures taas waxay xaqiijinaysaa normal growth and mental development marka hormoonkaas wuxuu xaqiijinaya shaqadiisu tahay koritaanka iyo kobaca normalka. Thyroxine also works conjunction with adrenaline, xiriir wuxuu leeyahay ama oo macnaha la sameeyo wada shaqeyn adrenaline enhance inflammatory activitieska markii howlaha lama farayaasha loo yaqaano sida kordhinta reedka xaddiga wareega dhiigga ku wareeyo iyo wixii lamid wax kasta saameyn ay leeyihiin hadduu yaraado iyo hadduu bato thyroxine hormoonka lagu magacaabo muxuu saameyn caafimaad ahaan u leeyahay. waxaan leenahay under effect of under secretion loo yaqaan hebo ereyga hebo meel kasta ku harto waa hoos. Under secretion could lead waxay horseedi kartaa to efficient iodine in diet cuntada inay iodine ku yaraato ama defective enzymatic reaction falgal oo macnaha enzyme inuu dhaco concern with information sameynsanka iodine ay ku samaysan lahayd inuu macnaha defective ku noqdo. Hypothyroidism waxaa leenahay waxay horseedi kartaa laba waxyaabood. Creatinism waxaa loo carruurta ku keeni karto cudur la iyo myxedema oo ku keeni karta adultiga labada maxaa kala lahaa hadduu hoos u dhaco. Keratin children waxaa leenahay half default legs carruurta macnaha cudurka qabto lagu laalaabanay leeyihiin. Trilateral skin maqaar qalalan lahaan karaan carabka weynaa kara large tango and general body stiffness iyo jirka macnaha isbedela sagaranba. Such children have poor mental development result low intelligence. carruurtan waxaa ku imaan karta maskax kobcooda inuu hooseeyo waxayna ku keeni kartaa IQ-gooda inuu yaraado aqligooda. Myxedema waxaa leenahay in adultiga waxayna tusaysaa ayadoo show by the swelling of thyroid gland inuu qanjirka oo macnaha qunka Soomaalida dhahan laakiin waxaa lagu magacaabo goiter ayaa lagu magacaabo inuu aad iyo aad u bararo. taasna waxaa ugu wacan due to the overworking of thyroid gland oo shaqada ka badata isagoo isku dayayo inuu sameeyo thyroxine ku filan. Due to the law of thyroxine concentration ribanaanta ama ribanaanta thyroxine oo yaraato individuals have low metabolic rate hoos ayaa u dhacayo waxyaabaha metabolic rate ka dhacaya taasna waxay ugu wacanaysaa ama keenaysaa reduce heartbeat-ka garaaca wadnaha inuu hoos u dhaco breathing rate inuu hoos u dhaco low of body temperature inuu hoos u dhaco heerkulka. They are mentally physically starved qofka maskaxiyan iyo macnaha physical ahaan buu isbedelayaa abnormal uu ekaanaya. Low physical activity result into the weight gain or obesity inaad jimicsi la sameey waayaan mararka qaad obesity keentaa ama macnaha ayid saaid ay keentaa. Retention of excess fat ayaa keeni kara isagana oo dheemalawa. Hence swollen feet and puff face wejiga macnaha oo aad u xarkaga iyo macnaha lagu bararay keeni karta. Hypothyroidism can be controlled waxaa ku lagu daaweey karaa ama lagu maamuli karaa in la balance gareeyo cuntada iyadoo lagu qoraayo iodine table salt cusbada caadiga la isticmaalo iodine aan administration by iodine table ama kaniin lagu soo qoray. waxay ku dhacdaa ama u badan yahay goiterkan cudurka ama loo yaqaano myxedemaha dadka xeebaha ka fogfog sababtoo ah seafoodka dadka badsado kuma dhacdo. Seafoodka waxaa ku badan maadada loo yaqaano iodine ayaa ku badan marka haddaa soo isbuuci weekii one time cunto seafoodka waxaa laga yaabaa inuusan kugu dhicin. Effect of overproduction haddii saaid loo soo daayo markaas haddii uu yaraado ahayd oo loo yaqaano hypothyroidism waxaa leenahay over secretion of thyroxine is often due to the presence of plasma protein waxaa ugu wacan markasta hoorka plasma proteinka that stimulate thyroid gland kaasoo ariya waxaa ugu wacanba defective enzymatic reaction inuu enzymeka falgalkiisa oo qaldoomo. Hypothyroidism leads to increased waxay horseedi kartaa ama keeni kartaa inuu metabolic rate kor u kaco taasoo keeni karta xaddiga wadnaha inuu kordho breathing rate ka kordho heerkulkan jirka ku kordho. Individuals marka waxay noqonayaan nervousness wareersan restless aan siinaba lahayn easily irritable aad macnaha sensitive u ah. Extreme hypothyroidism hadday badato waxay keeni kartaa wadnaha inuu fashilmo. Conditional as loo yaqaano toxicities ayaa dhici karto sumo ah. Hypothyroidismka waxay lagu control karaa daawo weyn iyadoo loo isticmaalo radioactive iodine ama surgical illa macnaha qalliin lagu sameeyo iyadoo laga wareejinayo thyroid gland-iga meeshaas. halkaas waxaan kusoo barnay thyroxine wuxuu soo daaya thyroid gland wuxuu ku yaalaa neega waxa uu ka kooban yahay carbon iodine hadduu bato iyo hadduu yaraado muxuu keeni karaa halka ku baran. Adrenaline hadduu lahaydno adrenaline glands waxaa leenahay attached to the abdominal cavity horta ubucleyda ama kaliya above each kidney labada kili korkooda ayuu ku yaalaa. Each made up of two distinct region mid kastana labo ka kooban yahay. Outer qeyb sare oo adrenal cortex la dhaho iyo inner qeyb hoose oo lagu magacaabo adrenal medulla la dhaho. Adrenal medulla receives the nerve impulse dhambaal ayuu ka helaa from the brain and produce hormone kusoo daaya
corticaska laakiin no nerve supply wax nerve xiriir lama laha and produce number of hormones kale lagu magacaabo corticosteroids ayuu soo daaya waxaa loo yaqaano adrenaline prepares wuxuu diyaariyaa body for emergency fight and fly waxyaaba emergency-ga ayuu u diyaariyaa the heartbeat increase heerkulka wuxuu kordhiyaa wadnaha xadiga garaaciisa ayuu kordhiyaa wuxuu kordhiyaa increase the rate of circulation xadiga wareega dhiigu kordhiyaa sidoo kale wuxuu kordhiyaa metabolic rate kada intaas oo dhan kornaan the arterioleska ama xididada of the skin maqaarka and digestive system construct mararka qaar xirmaan in the liver bearka glycogenka ayaa loo bedelaa glucose-ka shaqadaas badan u qabtaa skeletal muscles contract and relax ayuu ku sameeyaa si uu ogolaado dhaqdhaq movement breathing rate ka xadiga neefsashada wuxuu sameeyaa inay noqoto faster and deeper oo aad macnaha degdeg u oo guna ah fats are converted to the fat acid fats kan wuxuu u bedelaa fat acid-ka which are available by the blood of the muscle contraction taasoo u suurtagelinaysa muruqa inuu aro office secretion and the secretion entire office secretion adrenaline can be brought about the growth of tumor waxaa qanjir ama ayaa samaysmi kara to the medulla of adrenal gland ay ku samaysmi kara haddii oo saaid loo soo daayo cytomiskan waxaa kamid ah inuu heerkulka blood pressure-ka saaido oo severe headache madax xanuun daran inuu imaado inuu wadnihii saaid u garaacmo barar inuu imaado iyo baahi ama daal macnaha faintness ah waxaa ugu wacan result ka dhalanaya aging of much organism xubnihii inay degdegaan duqoobaan sida keliyaha wadnaha iyo liverka oo intaasba macnaha qaabilsan waxyaabo kala duwan liverka kidneyga filter ah oo macnaha kala filter gaadina soo saar heartiga dhiigga dhan qaabilsan iyo liverka secretionka qaabilsan soo aragna waxa loo yaqaano endocrine marka hore nervous system labadoodii hadda aan isbarbar dhigno waxaan leenahay differencegaas u dhexeeya muxuu yahay horta comparison between endocrine labadooda both provide means of communication within a body of organism labadu waxay ka shaqeeyaan inuu isgaarsiin macnaha waa similarities inta both labaduba waxay ka shaqeeyaan inay transmission of message inay macnaha dhambaal diraan ayadoo la caris la sameynayo strictly by stimuli and responsible celinna lasoo sameeyo target organiska of hormoneska factor organ ayaa la dhahaa sida macnaha loo yaqaano nervous systemka iskala mid both involve chemical transmission labadaba chemical transmission ay kulag leeyihiin inkastoo electrical signal oo yahay nervouska labaduba waxay keenaan response ama fal celin jawaabeed ayay bixiyaan waxa loo yaqaan halka differencega macnaha udhexeeya labadooda maxaa dhici karta endocrineka iyo labadooda waxaa leenahay endocrine systemka wax kalama chemical substance ovagate a response falceliska ama chemicalska ayaa wuxuu dhici karaa wax loo yaqaano degdeg ayuu dhici karaa sorry chemicalka ayaa falceliska quseeya halka nerve impulse uu falceliska quseeyo number 2 chemical transmitted through blood dhiig ayuu ku gudbaa kaasna impulse nerve fiber oo axon lagu magacaabo ayuu ku gudbaa number 3 response slow waaye laakiin wuxuu saameeyaa qeybo badan oo jirka kamid ah halka response-ga oo yahay nervous system quickly laakiin uu saameeyo meel qaas ah effect wuxuu saameyntiisa long lasting waaye saameyntiisa way waareysaa ama way sii jireysaa kanisaayad degdeg waa saameyntiisu waana waqti gaaban responsiga wuxuu ka dhacaa involuntary oo macnaha lama farayaal kuwan labadaba uu dhacaa voluntary involuntary maskaxdana ku shaqeysa labadaba soo baran in this lesson waxaan ku baran doonaa effect of drug abuse on human health waa iska soo koobeynaa caafimaad ahaan maxay ku leedahay waxa loo yaqaano saameynta daawada si qalad loo isticmaalo 10 shanaad drug horta maxaa la yirahdaa waa wax kasta chemical substance ah ee la qaato jirku qaato una qaato psychological and physiological oo ah nafsiyan iyo jir ahaan labadaba generally labadaba u saameeya general drugs are prescribed by medicinal purpose waxaa loo qoraa ujeed caafimaad si macnaha xanuun u yareeyo ama loogu daaweeyo jiro si kastaba ha noqoto however there are some substances which when introducing into the body also cause psychological and physiological effect that cannot correlate waxyaaba qaar waxaa jira aan la qorin laakiin jirka marka labadaba saameeya indiscriminate use of drugs with no regard to their side effect called drug abuse daawada oo aan la kala socin isticmaalkooda saameynta ay keensanaysa waxaa loo yaqaanaa drug abuse oo macnaa daawo kasta aad arag common abuse drugs daawooyinka qaladka ayaa la isticmaala waxaa kamid a qaadka ama mira nicotine cannabiska saliva
loo yaqaano bag la taambo mararka qaar waa dhigi kartaa alcohol waaye prolonged abuse ama drugska oo macnaha muddo dheer la qaato oo loo keenay addiction ama la qabsay drug dependency daawadii lagu xirnaado waxyaabahaas oo dhan ay keeni kartaa effect drug abuse-ka haddaan iska soo gabagabin waxaan leenahay saameynta ugu badan ay geystaan waa number one depressed appetite and bone feeding habitat leading to emissions inay keento cuntadii oo ka xiranta iyo obiteedka oo ku yaraada dabeecadda cunida oo yaraata number labo waxaa loo yaqaan interference with absorption of vital vitamins such as vitamin K and vitamin E which may lead sterility and blindness inay farageliso daawadaasi la isticmaalayo dhuuqitaanka jirka uu nuugi lahaa vitaminadka K oo noo qaabilsan blood clot K taasina keeni karto indhoolinimo iyo macnaha inuu germs soo galo lower nervous coordination ayay keeni kartaa iyadoo soo horseedi kara dhaqdhaqaaqa iyo balansiga inay yareyso hoosna u dhigto performancega macnaha sports ama manual activity holaha qabanayso ayay dib hoos u dhigtaa dareen sensitive ayay lungiska ku tahay iyo neef mareenada iyadoo u horseedi karto qufac joogta iyo infection waxay u horseedi kartaa meelid cancer ayay wada sababaha u horseedi kartaa iyo dhuunta iyo waxa loo yaqaano kaadi mareenada waxay u horseedi kartaa ama keeni kartaa sidoo kale caloosha ay ulcer ama nabar ku keeni kartaa gaar ahaan gaaski waxaa lalahayo waxay dhaawac ku keeni kartaa nudayaasha badan ee sida wadnaha iyo beerka iyadoo u horseedi kartaa wadna attack ama artiga oo macnaha istaaga iyo liverka oo ku keeni karto cirrhosiska waxaa laga yaabaa waxay soo fargeli kartaa heerkulka joogteynta jirkiisa iyadoo keeni karta kul badan inuu dhumo waxay keeni kartaa dhaawac ayay ku sababi kartaa maskaxda iyadoo u horseedi karta hurdo la-aan ama insoma ama xasuustoo dhunta oo anzema la dhaho ama deliriska ama waxyaabaha mental illness oo dhan oo waali waxaas oo dhan ay keeni kartaa sabab kartaa dumarka waxay ku keeni kartaa inay macnaha caruurtu ay kabacoodii ay yaraadaan pregnancy-gana oo macnaha xumaado ama soo dhaco dhiciyo waxay ku keeni kartaa dhaawac aan la soo celi karin xibnaha ugu muhiimsan jirka sida macnaha organiska gaar ahaan waxay keeni kartaa haddii ay sii socdaan death oo dhimashaa waxay keeni kartaa qofka loo yaqaano addicted personka qaba maadadan inuu noqdo bridisome ama accident oo ku noqdo ama infectionaad oo qaadaba sida HIV wixii lamida inuu qaado ayay u keeni kartaa ama addicted oo noqdo qofkii halka ayaan waxaan kusoo gabagabeyneynaa hadduu ilaahay idmo endocrine system waxaan ka baranay endocrine systemkii generale muxuu yahay oo introduction ahaan laba waxaan ka baranay inaan endocrinekii loo u kala waaweyn u ka baranay inta dhegta la siiya dhegta inaan u kala qaybinay kabacdina laba xabo waaweyn oo thyroxine adrenaline la yiraahdo aan ku kala baranay midna keliyaha ku yaalo midna waxa loo yaqaano dhuunta ku yaalo soo daayo thyroxineka thyroidka qanjirka la yiraahdo halka adrenaline ay soo daayeen oo laba u qaybino cortex iyo midula u qaybinay kabacdina waxaan aragnay isbarbardhigi labadoodii nervo labadii system ee chapterkan ka koobnaa halka markaada ugu dambeysana kusoo gabagabeyn waxa loo yaqaano hadduu ilaahay idmo drug abuse ama daawada oo laiska isticmaalo bilaa macnaha qaab la-aan inay problem badan keento. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.